intee laga helaa nin hees ku soo qaadayo maalimo ka hor intuu ku guursanin. Gabadhan record ay jebisay. Waa gabadhii ugu horeysay oo social media ku jirto, oo social media isticmaasho, oo hees loo soo qaado weliba wiilka ay guursanayso mise ninka ay guursanayso. Aniga xaggayga aan dhaho maasha Allah. Sababta inta u badan TikTok mise YouTube dadkan ka arkeen, dadkan caanka ah magaca lah, inta u badan markay isguursanayaan mise gabadha folxun oo wax yar ka yar dambeysa wiilka dhinaca quruxda ayaan ka hadlayaa, mise wiilka lama helin laba san isku soo baxdo. Waligii ma arag aroos san la isku soo wada baxay. Inta kale waan arki jirnay boqolaalan isguursanayso, boqolaalan isdaba ordayso waan aragnay. Laakiin gabadhan maasha Allah waa gabadhii ugu horeysay sidaan kuu sheegay daawada, ugu horeyso oo ninkeeda hees u soo qaado. Ragga kale wuu ka duwan yahay, waxyaalo badan ayuu kaga duwan yahay. Waa halka wiile gabadha wax yar la sheekaystay maanta inta caan ah oo magaca lah, gabdha waqtiga laga dhuminayo ma yaro. Kuwan markii hore aan sheegay haddana waan ku celinayaa markii boqolaalan kor ayaan sheegaya. Sababta waxaan la yaabo waxaa waaye ma guurka Kenya ayaa qaali ah. Dadkan ka hadlayo waa dad aan wada yaqaantiin. Ani markii horeeto waxaan lahaa maanta Drisla Cabdi wuxuu u imaaday Kenya inuu Samiixa ka dhigto ilmaha hooyadood, ilmihiisa hooyadood. Waan ku haystay wallaahi ilaa xiddan waan ku haystaa. Laakiin waxaa la yaabanahay lacagtaas uu qabaa, maalkaas uu sameeyaa, miyay u qalmanin? Ayaga kelimo oo dadkan maanta social media ku jiraan lamaana waxay isla socdaan war xitaa 6 sano qaarkood kambaniyada u maleynaya isla socdaan. Maxaa jira? Maxaa khaldan? Ma guurkiya qaali ah mise qofkan la socoto oo anaga nagu leedahay waan isla soconnaa waa been oo dadka la haysata. Midda kale maalin hore ayaan maqlay lamaana waxaa jira social media dhahaan saaxiibaan ahna oo isma qabno laakiin hoos iska qabaan. Waxaas ayay u badan yihiin. Laakiin gabadhan maasha Allah maalin hore waxaa ka faafay oo dhinaca social media ku faafay inay qodbo sireysteen, inay way isqabin oo been tahay uu guursanaynin, uu waqti ka dhuminayo, oona isla soconin, uu gabdho kala wado, inay kaligeed ahayn. Yacni dad badan ayaa ka dhadhacsiiyeen Maariish. Gabadhan xitaa Maariish ayaa la dhahaa. Inay tahay gabadhi shanaad, gabadhi lixaad uu ninkan u ahaan jiray nimanka gabdhaha ku dheelo oo gabdhaha ku ciyaaro. Ayada wixii u daba ordaysa madaxa laga hayaa. Yacni saas ayaa suuqa ku jirtay. Laakiin maanta hadalkii dhan oo beenta ah aad ka sheegayseen, hadalladii bannaanka la wareejinayo, wixii dhan wax isku noqotay been iyo dambas bannaan la dhigay. Inta u badan waxaad arkaysaa gabdhaheena Soomaaliyeed nin walba ay iska raacayaan. Maanta meeqa gabar ayaa maqashay gabadha ninkeeda ayaa dilay, gabadhaas ninkeeda ayaa dilay, gabadhaas ninkeeda ayaa silciyay. War maxaan mar walba ana iskaga fiirinin raggan? Maxaana raggan rag uu badan yahay Ilaahay carrada ayuu ka badiyay. Ma aho nin walbo ku dhow kursana inaa iska raaco. Maanta furitaankii batay waa aragtay. Furitaankii ayaa batay. Markii hore waxay isku gursanayeen wuxuu ahaa qabiil mise laba hooy iyo qaraabo ayaa la isku keenkeen iyo waxan inta badan ayuu guurarka furitaanka u dhacaa. Soo gabdhaha i daawanaya, gabdhaha i dhageysanaya ani waxaan dhihi lahaa qofkan aad guursanayso iska fiiri. Haddaba raacin, haddaba galin. Meeqa aroos ayaa tagtay? Aad telefoonku maqashay? Waa la soo furay. Maxaa la isku fahmi la'yahay?
Hadda mid aan kuu sheego, guurka midka raago waa mid nikaaxa yar. Nikaaxa yar lacagtaas la yareynayo, lacagta faraha badan iyo faataalnimada la sameynaynin. Wallahi barako weyn ayaa ku jirta. Dad badan oo maanta intaasoo sano isqabaan, 100 sano, 50 sano isqabaan, 40 sano isqabaan. Wallahi hadaa arko markay noloshooda bilaabayeen, nolol farxad leh may ahayn. Way yar rafaadeen. Lacag badan may haysanin, shilin may haysanin. Qaarkood waa loo aruuriyay lacag oo qaaraan ayaa loo sameeyay. Maantana way guuleysteen. Ma aha mar walba inay lacagta tahay. Mida kaleeto, ani waxaan dhihi lahaa darisle iyo Samiixa. Maxaa sugayseen? Qof walba wuu ogyahay maanta inay isjeceshihiin. Qof walba maanta wuu ogyahay inay isku haysatiin. Lacag wuu haystaa, adigana lacag waa haysataa. Maxaan u jecelnahay xaaraanta? Maxaan xaaraanta u dawareegnaa? Maanta hadaa awoodo inaad aqal gasho, aad guri samaysato. Wallaahi rag waxaa jira maanta darisle ka lacag yar. Rag maanta waxaa jira darisle ka tabar yar. Laakiin gabadha ay la socdaan ayna u soo galanaynin ninkan inuu albaabaha kaga soo galo. Anigu waxaan la yaabanahay, ma ka xishoonaysaa Samiixa inaad ku dhahdo waan ku jeclahay? Ma ka xishoonaysaa Samiixa inaad ku dhahdo waan ku rabaa? Dad badan ayaa maanta oo sheekada na soo gabagabayn kara. Laga yaabaa rag badan inuu weydiisanayo. Adigana meeshan aad joogto ood iska dhadheelayso. Waxaan ka cabsanayaa arooskeeda inaad durbaanka tumto. Darisle gabdho badan way ku soo mareen. Laakiin gabar noocan weli ma arag oo qalbi furan. Maanta gabadhan waa la jecel yahay. Afarta gees oo Soomaalida laga jecel yahay. Waxa lagu jeclaadana inta u badan waa qalbigeeda. Naxariis ayay leedahay. Gabdhaha nooca maanta ma joogaan. Gabdhaha maanta waxay u badan yihiin gabdho ragga dhaco oo maalkiisa u raagaynin, oo maalkiisa u fiicnayn, oo rabin inay shilin meel u dhigaan. Ani waxaan ku dhihi lahaa waqtiga ha iska dhuminin. Gabadhani walaashaada ah, quruxda badan yar yay ku dhaafin. Rag badan ayaa maanta daba ordaya. Rag badan ayaa leeyihiin intaan ka helnaa. Adigan maxaa khaldan? Miyaa cabsanaysaa? Hadaa cabsanayso, anaga shaqada noo dhiib.